dab soo shida buu yidhi xaabaa la soo guray dab baa la shiday markii la shiday buu yidhi gala haddaba qola waxay dhahay war nabigu waa kiina yidhi dee adeecee dabka hala galo unbay dee noqonaysaa ileen ninkan madaxna waa laynooga dhigay adeecana waa la yidhi qola waxay dhahay waryaadhe war nebi maxamed ba dabka carar baynu u raacnay naar baynu rabnay inaynu ka cararro markaynu nebigaba raacaynay calayhi salaatu wasalaam dabaynu arkaynoo la shiday dee geli mayno waxaa la yidhi bal arrinkan aan nebigii kula noqonno dabkii waa la diiday in la galo markii dambea nebigii loo yimi calayhi salaatu wasalaam ninkiina cadhadii waa ka baabaado waa la israacay kadib baa nebiga loo yimi calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo ninkii aad madaxda ka dhigtay dee wuxuu yidhi dab shido markaanu shidnayna wuxuu yidhi gala dabka dhammaantiin gala dabeetana wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam low dakhaltumuuh haddaa geli lahaydeen kamaydan baxdeen buu nebigu yidhi dabka haddaa geli lahaydeen buu nebigu yidhi maa kharajtum minha abada weligiin dib ugamaydo soo baxdeen inama aacatu fi lmacruuf buu nebigu tilmaamay xadiidkii bukhaari war aacadu waa samaha markaan idin leeyahay madaxda ateeca wax kasta ku ateeca maahae waa samaha ku ateeca laakiin hadda samiyo khayrtoona cid iskuma ateecdo waxaa ka mida aacadooda ama naseexada a'immada in loo duceeyo walidalik baa bacd ala'ima asaalixiin waxaa laga sheegaa waxay odhan jireen haddaan duco mustajaaba uun leeyahay madaxda dadka muslimiinta abaan ilaahay ugu baryi lahaa xabaddaasi ninkaasaan ku tijaabin lahaa waayo hadduu isagu islaaxiyo mujtamac oo dhammi way wanaagsanaan lahaayeen xataa hadduu gaaliya waa loo ducayn karaa laakiin maxaa loogu ducaynaya unbaa isweydiinta leh inagu waxaad moodaa inta badan wuxuu baynu korray iyadoo laleeyahay allahuma ahlik alkafarata walmushrikiin walacdaaka acdaa alyahuudi wanasaara saasuu lagu ducaynayo laakiin dee waa markii dagaalada iyo dhibtu jirtay oo la isdilaye gaalka laftiisaa loo ducayn karaa lakin waxa isweydiin lown maxaa loogu ducaynaya waxaad ugu ducaynaysaa wixii nebi maxamed ugu duceeyey طufayl ibni camr iddawsi markuu nebiga u yimi muxuu ku yidhi nebigu wuu diray طufayl tolkii baa loo diray diin buu usoo sheegay nin xakmad badan oo madaxo tolkii madax u ah oo gabyaayo gabya buu ahaa oo khatar ah oo caqli badan oo laga dambeeyo laakiin markii uu diinta u keenay reerihii way u dhagooleeyeen reerkii uu u talin jiray gabyaga oo odayga u ahaa markii uu diinta ula yimi yidhi war diinta raaca waa laga aqbali waaye muddo markuu wadee waxba laga aqbali waayuu nebiga ku soo noqday calayhi salaatu wasalaam xadiidkii bukhaari muxuu sheegayey wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo hal baan kaa baryaya reer dows habaar buu yidhi qoladii uu ka yimid dee waxba diiday ilaahu kuwaa habaar buu yidhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam kuwaa habaar u soo jeedi buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam gacmuhuu taagay waxaa la filayey bal wuxuu nebigu yidhaahdo allaahuma hdi dawsan buu nebigu yidhi ilaahay ow reer dows hanuuni marka a'immada u duceeya waxa ugu ducaysaan ilaahu hanuuni hadday hanuunaan dadka khayr badan baa yaa ku soo baxay dacwadii nebiga markuu nebigu yidhi ilaahu reer dows hanuuni diintaynu haysanno malaha inta ugu badan raggaynu ka qaadannay waa ducadaa nebiga dadkii alla ku soo saaray yaa ka mid ah nimaa dhammaantiin wada taqaaniin abu hurayre goorma soo islaamay abu hurayre طufayl ibnu camar baa keenay waa nin reer dawsa waa kooxdii uu nebigu u ducaynaya lahaa ilaahu reer dows oo hanuuni mar labaadkii uu soo noqday 70 ama 80 nin oo reer dows ka mida buu nebigu keenay abu hurayre ku jiro waxaasoo xadiisa ducadii nebigii kugu soo gaadhay calayhi salaatu wasalaam idan a'immada muslimiinta loo ducaynaya waxaa loo ducaynayaa caamada dadka muslimiinta ah cumuuman waxaynu leenahay a'immada iyo caamada iyo haddaynu dhowr xadiis iska dul marro wakhtigoo dhammaaday daraaddeed amase kooban nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa jaabir ibnu cabdillaahi albajali saxaabiga la odhan jiray nin saxaabiga aada u qurux badan ahaayoo madax ahaa oo soo islaamay oo reerkooda madax ahaa markuu soo islaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam baycu la galay heshiis wuxuu nebigu kula heshiiyey calaa iqaamati الصalaة wa itaa'i zakaa waannusxi likulli muslim xadiidkii saxiixu muslim waxaan kugula heshiinayaa buu nebigu inaad salaada oogto zakada bixiso iyo qof kastaoo muslimaba inaad u naseexayso jaabir jariir ibnu cabdillaahi albajali waxaa laga tilmaamaa markii dambe xadiidkan waayadu sheegaya dambe dhowr munaasabadood baa la soo wariyaa oo xadiidka ku sheegay waxaa ka mid ahaa nin buu diray markaasuu wuxuu yidhi faras suuqa iga soo iibi ninkii baa faras qurux badan buu helay ninkii faraska lahaa buu la heshiiyey 300 bay ku heshiiyeen dirham faraskiiyo ninkii uu soo kaxeeyeyna keena buu yidhi
jariir bn cabdillahi albajali baa loo keenay waxaa la yidhi faraskani 300 buu joogaa dirham dee waan ku soo heshiinay lacagta sii faraskiibuu sidaa ogaa markaasuu ninkii ku yidhi waryaa ninow faraskaagu 300 uu ka qaalisay haddaba ninkii wax iibsanayay ee loo keenay faraskii la yidhi waa 300 iska bixi war ninow buu yidhi faraskaagu niyo 300 uu ka qaalisay haye 400 ma ku siiya dee awalba 3 buu ogolaayay haa buu yidhi 4 sii jariir dib buu eego wuxuu dhi niyo faraskaagu 4 uu ka qurux baday haye 5 ku siiyo waayahay buu yidhi dib buu eegay jariir wuxuu dhi niyo faraskaagu 5 uu ka qurux baday 800 buu gaarsiiyey jariir siduu faraskii waday 700 loogu keenay 800 dirham markaasuu yidhi waxaan sidan u yeelayaa waxaan maqlay nebi maxamed baan heshiis la galay buu yidhi maxay wanusxi likulli muslim inaan u naseexeeyo qof kastoo muslima heshiis ayaan galay marka inaan dee bacmushtarka tijaarada inaan kugu dhaco ma rabe waa inaan kuu naseexeeyaa buu tilmaamaya idan naseexada halkay ka gaadhsiisnaayeen waa kaasi uu nebigu calayhi salaatu wasalaam tilmaamayo ee wakhtigoo dhacay axaadiis badan baa soo aroortay laakiin aan xadiid qura ku soo koobo xadiidkay culammadu yidhaha xadiid almir'aatiya nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi almu'minu mir'aatu akhiih ama almu'minu mir'aatu lmu'min mu'minku mu'minka kale walaalkiiyo muraayad buu u yihi xadiidka kani dhowr shay buu kulansaday kow waa waxa ay culamaau tashbiih fi lbalaaqa ku tilmaamaan waxa la xadfay aladaat wa wajhu shabahe labadaba almu'minu mir'aatu lmu'min baa la yidhi adaatu shabahina waa maxduuf wajhu shabahina waa maxduuf waxa meeshan ku jira la yidhi macno ballaadhan oo loo tilmaamayo qofka muslimka kow horta bini aadamku sidiisaba shayga maxsuuska anigu imka waan hadlayaa laakiin haddaan wadan lahaa waxaan illustrate gareeyo halkanoo sawiraan tuso wax kale oo fahamkiinu uu ka badnaan lahaa waxaan sheegayo yacni bini aadamku mar kasta wax xisiya la tuso wuu ka faham badan yahay marka hadal qura loo sheego hadalka laftiisu shay macnawiya haddii shay maxsuusa wax la taaban karo lagugu miaaliyo wuu ka fahamku wuu ka dhadhow yahay mu'minka markii la tilmaamaya waxaa la tilmaamay walaalkiisa kale mu'minka muraayad buu yihi muraayaddu maxay qabataa un su-aasha a isweydiino muraayadda waad soo kacdaa subxii adigoo xabaja kugu taalla oo dhammaajaysan dabeetana muraayaddaad is hortaagtaa kow muraayaddu waxay kuu sheegtaa waxaad ceeb leeday ma qariso qarinta ma taqaano ma istiraao ninku waa ninkii fiicnaa isku kaa eegi jiray qayb ka qariyo uun in yar u sheeg ee waxaad ceeb leedoo dhan bay muraayaddu kuu sheegtaa muraayadda waxay kaloo leedahay ma qayliso si hoosay kuugu sheegtaa adiga iyadu maysog kugu qaylin mayso buuqi mayso bal waxaad la soo kacday dee ninkaagan weyniyo saad u eg tahay kuma odhanayso laakiin iyadoo aamusan ayay kuu sheegaysaa inaad leedahay muraayadda waxay taqaanaa cadaaladda meeshaada quruxda badanna qarin mayso waa ku wada muujinaysaa meelihii uskagu kaaga yaallayna waa ku tusaysaa meelihii ku quruxda badnaana waa ku tusinaysaa muraayaddu black fileska ma taqaano ma kuu ururinayso hadda markaad isku eegtay aad ka tagtay hadhow haddaad ku soo noqoto sawirkii hore ma haysato oo ku odhan mayso ninkii foosha xumaba tamacsiga kaa eegaysaa ee mar dambe haddana ku eegaysaa muraayaddu marka la isku eego way ku kaalmaynaysaa weliba waxay kugu kaalmaynaysaa ceebtaa sidii aad isaga faydi lahayd oo markaad masaxdo weli wax kugu sii hadheen inta ay leegtahay waa ku kaalmaynaysaa muraayaddu waxaasoo dhan markay ku tusinayso waxay culammadu yidhaahdaan waa nasiixada qofka mu'minkii qaabka la rabo inay u dhacdo madaxu naseexee masaakiinu naseexee cid kale u naseexee qofka muslimka waxaa loo baahan yahay wixii ceeba iyo talaxumo iyo dhib haysata inaad uga naseexayso adigoon ku qaylin oo ku buuqin oo ceebayn adigoon fayl madow hoosta gashanin oo dhan kaa beri baan arkay isagoo caynkaa samaynayo kaa beri haddaba inaad beri in yar u sheegto tiri war waxaasi ma bannaana iska daa kaa soo maaratid baruu soo maray isagoon waysadaba garanayno suxulka horraysiinaya war suxulka ila qofba marunbu waysada bartay haddaad u sheegtay gacanta iyo wejiga ku horraysiinaya waa isku mide waxay ahayd un u qalda inaad wax u saxdo fayl madow ma leh qofka mu'minka ahi qofka mu'minka ahi walaalkiis sirtiisa ma faafiyo oo ceebta ma kashfiyo